caadil isagoo hadalkiisii sii wata waxa uu yidhi subaxaasi waxay ahayd subax aanu ku jirno sida naloo sheegay safar dalxiis haddana ma aanu ahayn dalxiiskaasi mid xiisa badan sidii kuwii aanu naqaanay waa safar dalxiis oo la murugaysan yahay qofna aanu la hadlaynin qof kale haddii laysla hadlana waxaa laysdhaafsanayaa hadallo kulkulul waa jawi ay hadhaysay cabsida iyo welwelku annaguse ka carruur ahaan ma fahmano wax laga cabsanayo iyo dembiga aanu gallay toonna ilaa aanu soo gaadhnay goobo ay degan yihiin ciidamada dalka Masar hubka iyo gaadiidka dagaalka ayaa daadsan wadada dhinaceeda garan mayno sababta sidaasi banaanka loogu waday waxaase laga yaabaa in ay tahay dhoolla tus ay ku soo bandhigayso dawladdu awoodeeda ciidan iyo midda hubeed soo saar kamerada oo sawir dhaqso ayuu aabba ku yidhi hooyo isagoo si kulul ula hadlaya iyana gacmaheeda oo gariiraya oo le waad ina halaagaysaa ayay dhowr sawir oo buubsiisa qaatay xoogaa goortii aanu soconay ayuu mar kale yidhi dhaqso oo sawir halkana maanta waa maalintii inoogu dambaysay ayuu sii raaciyey shucuurka aanu ka akhrisanano wejiga hooyo iyo aabe ayaa ka carruur ahaan cabsida nagu sii siyaadinaya waxauna marayaa marxalad aanan weligaya arkin ka carruur ahaan maalinkaas waxba ma aana soo faa'iidin kolkii aanu guriga ku soo laabanay ayuu aabe soo xidhay qolka dabcan sawiradii ay soo qaaday hooyo ayuu dirayay muddo kooban kolkii uu ku xidhnaa qolka ayuu ka soo baxay isagoo dhididaya hooyo ayuuna laabta geliyey wuxuuna uga mahad celiyey in ay maanta qaaday sawirro aad u tayo fiican safarada dalxiiska ahi waxay noqdeen kuwo joogto ah hooyana sawirada ayay hoosta ka qaataa aabbena waxa uu ku mashquulsanaa cabirka kiiloomitirada ay isu jiraan xeryaha ciidamada iyo fadhiisimadoodu waxa uu qoraa goobaha ay wadooyinka kaga yaalaan xeryuhu iyo xero kasta iyo inta ciidan joogta iyadana isha ayuu ka cabiraa waxaa kaloo iyana meesha ku jirtay safaradii joogtada ahaa ee lagu tegayay Rooma safaradan qaarkood waa yeedhmo ka imanaysa saraakiisha musaada Israa'iil halka qaar kalena ay yihiin kuwa ganacsi iyo kuwa dalxiis oo lagu gubayo lacagta tirada badan ee meel la kala geeyo la garan la'yahay inshiraax iyo Ibraahim waxa ay ku mameen lacagtan xad dhaafka ah waxaana madax maray xaaladda lama filaanka ah ee ay galeen markan waxay u dhaqmayaan qaab cajiib ah waxayna go'aan ku gaadheen in ay caruurtooda uga xog waramaan hawshan ay faraha kula jiraan kadibna ay Israa'iil ka dalbadaan in calaa qof loo shaqaalaysiiyo si xaafadda oo dhammi ay u qaadato qof iyo mushaharkiisa caadil oo mar kale ka sheekeynaya ayaa waxa uu yidhi maalin ayaa hooyo iyo aabe ka soo laabteen safar ay ku tageen Rooma waxayna sideen hadiyado iyo alaabo aad u tiro badan boorsooyin aad u waaweyn ayay siteen oo dhammaantood ay ku jiraan alaabo annaga naloogu talagalay aabe iyo hooyo ayaa is eegaya waxayna damacsan yihiin markan in ay nala wadaagaan sirta ka dambaysa noloshoodan quruxda badan aabe ayaa hadalka bilaabay oo waxa uu yidhi idhagaysta waxaanu soo marnay marxalad adag oo aanan heli karaynin xataa mid waxaana ahayd nolol adag idinna waxba kama ogeydin waxaad ogtihiin inaad ku nooshihiin nolol aysan jirin cid kale oo haysataa deriskeenna iyo carruurteenna waad ogtihiin sida ay u nool yihiin idinna sida aad u nooshihiin laydinka sheekayn maayo maxaad maalin uu noo weydiin weydeen sababta iyo sirta ka dambaysa nolosheennan quruxda badan su'aal weyn ayay ahayd oo aanan annagu ka carruur ahaan ka jawaabi karaynin aabe ayaase sii watay hadalkiisa shaqadaydii dawladda iyo cid kale oo ehelkeenna ah tooni sidan inooma aanay gacan qaban waxaa jira dad ina jecel hadiyadahan aad arkaysaana iyaga ayaa inoo soo dhiibay waa Israa'iil kuwa nolosheenna oo dhan bedelay caadil waxa uu yidhi hadallada waxay nagu noqdeen wareer iyo maska xanuun sababtoo ah waxaanu ku barananay iskuulka iyo deriskana aanu ka baranay in cadowgayaga koowaad ee aanu leenahay uu yahay Israa'iil gurigana waxaana looga sheegayaa in dadkaana jecel annana nalaga rabo inaanu jeclaanaa ay tahay Israa'iil maalinkaas laga bilaabo waxaanu ahayn carruur iskuulkana loogu dhigo cadaawadda Israa'iil halka gurigana nalagu baro jacaylka Israa'iil iyo inay noloshayadaba iyagu noo hayaan nolol wareer ah ayay ahayd taasi ilaa aanu muddo kadib dareennay macnaha shaqada waalidkayo waxaanu dareennay inaanu nahay jawaasiis khiyaamaya waddankoodii hooyo beryo kadibna waxaanu sii dareennay khatarta badan ee ku gadaaman shaqadan ilaa aanu ogaanay ciqaabta qofkii lagu arko shaqadan ay hayaan waalidkayo taasi oo ahayd dildalaad iyo in laga gooyo madaxa sidaasi ayay ahayd xaafadduna waxa ay deganeed xaafaddii danyarta ahayd ilaa inshiraax maalinkii dambe ay kaga dhigtay inay ka guurayso xaafaddan iyada oo degaysa xaafad ka nolol wanaagsan middan hadda ay ku nool yihiin kolkii Ibraahim ka hor yimina waxa ay tidhi waxaa laga yaabaa in maalin dhow nala qabto sidaasi darteed noo ogolow in aanu ku raaxaysanno noloshayada
waxay degeen xaafadda Madiinati Nasri oo xilligaasi ahayd xaafadihii ugu nolosha wanaagsanaa magaalada Qaahira. carruurtiina waxa ay ku dareen iskuulo ka qaalisan kuwii hore. xaafadan cusubina mar kale waxa ay noqotay goob lagu cabo khamriga isla markaasina ay ku kulmaan oo lagu soo dhaweeyo saraakiisha Masar. inshiraaxna wixii war ah ayay halkaasi kagala hadhaa kolka ay cabaan. carruurtii shaqo cusub ayaa iyagana loo sameeyey, taasi oo ahayd in ay warawareeyaan warkana ka keenaan carruuraha deriskooda ah iyo sidoo kale kuwa ay la dhiganayaan iskuulka. maalin ka mid ah maalmihii farxadda iyagoo qoysku ku jiro ayaa la daawaday waxaana ka soo galay waa war ku ciyaari doona farxaddii si fududna ugu bedeli doona murugo iyo anfariir. TV-ga waxaa ka soo baxay nin ay dawladdu ku heshay jaasuusnimo iyo inuu u adeegayay Israa'iil, kadibna lagu xukumay dildalaad oo isla markiiba lagu fuliyay. naxdin iyo cabsi ayaa soo food saartay ilaa aroortiina qofna qof lama aanu hadlin xaafadda, sidoo kalena wax dab ah lagama shidin guriga, mana aanu jirin sidoo kale qof dareemayay gaajo iyo baahi. waxaa ka weynayd dildalaada. nolosha wejigeeda madow ayaa la daawaday maalinkaas. aroortii ayuu Ibraahim u yeedhay inshiraax, waxaana uu sheegay inay aado berito Roma si ay ugu tagto sarkaalkii halkaasi joogay, uguna sheegto dhacdada xanuunka badan ee na soo wajahday. sidoo kalena u sheeg in ay carruurtii iyo innagaba saamayn inagu yeelatay dhacdadaasi. waxaadna ku tidhaahdaa hawshan annagu halkaasi ayaanu kaga hadhanaa, wixii intaasi ka dambeeyana idinku la kaashada ciddii aad doontaan. inshiraax sidaasi ayay ku safartay. markii ay gaadhay Roomana warkii ayay u sheegtay sarkaalkii Israa'iiliga ahaa, waxaanay ugu sii dartay in intaas ka badan aanay sii wadi karin hawshan in ay khatar gelisay naftii iyaga iyo carruurtoodaba. ninkani oo ah nin loo tababaray sida qofka maskaxdiisa waxa ku jira looga saaro ayaa u sheegay in hawshan ay tahay mid sahlan, wax welwel ahna aanay ka muujinin. waxa uu habeenkaas ku casuumay hotel uu degan yahay, waxaana habeenkaasi dhex maray labadooda wax kasta oo dhex mari karayay laba qof. inshiraaxna ninkan ayay isla habeenkaasiba u qaaday jacayl xaddhaaf ah, waxaana ilowday ninkeedii iyo wax kasta oo ku saabsanaa dhacdadii xanuunka badneed ee ay u soo gaadhay halkan. aroortii kolkii ay ka soo tegaysayna waxay ka codsatay in haddii hawl kale loo baahdo aan labadoodaba loo yeedhin ee uu iyada si gaar ah ugu yeedho. diyaaraddii ayay dib u soo raacday iyadoo aan waxba ka sidin wixii loo diray. kolkii ay timi ayay xaafaddii ku qarqisay hadyado iyo alaabo kala duwan. hawshiina halkeedii ayay kasii bilaabeen mar kale. Ibraahim cabsidii tirada badnayd waxa uu ku ilaaway hadyadihii tirada badnaa ee ay ku harqisay, halka inshiraaxna habeenkii ay la joogtay sarkaalka yuhuudiga ah ay kaga maydhatay dhammaanba wixii cabsi iyo welwel soo food saaray. warqadaha iyo xogta haddii la diri jiray markan isafgarad iyada iyo sarkaalka ah ayay isla garteen in aan warqad dambe la dirin ay iyadu la soo dhoofto oo habeenno qurux badan Rooma lagu wada qaato. in xogta la diro iyo in la qaado 100% waxaa khatar badan in la qaado, waxaase ku kaliifaya dareemo kale oo aan aqoonsanayn khatartaas. safar dalxiis ah ayay maalin ugu baxeen qoysku waddanka Turkiga. intii halkaasi ay ku sugnaayeen ayaa sirdoonka Israa'iil la soo xidhiidheen, waxayna ka codsadeen inuu Ibraahim si degdeg ah ugu yimaado waddanka Giriigga. si degdeg ah ayuu u baxay, waxaana laga xog waraystay dagaal laga yaabo inay Masaaridu soo qaato. isna waxa uu sheegay inaanu dagaalkaasi war ka haynin. waxa uu sii raaciyay in uu ka warhayo in saraakiishii Masaaridu ay intoodii badnayd Maka u aadeen inay ku soo cumraystaan, halkaas oo ay jiraan intoodii badnayd. tallaabada cumrada saraakiishu waxay ahayd tallaabo ay Masaaridu ugu tala gashay inay ku jahwareeriyaan sirdoonada iyo dawladaha cadowga ah si loo qariyo dagaalka 6 Oktoobar oo markaasi ay ka hadhsan tahay ayaamo koobani. waxaa la diray saraakiil fara badan oo xaramka loo diray si loogu dagmo loona qaato in raggii dagaalka hogaamin lahaaba ay xajka iska jiraan, kadibna ay meesha ka baxdo feejignaanta iyo diyaargarowga Israa'iil. Ibraahim isagoo hadalka sii wata waxa uu yidhi, laakiin haddiiba aan helo war dagaal ku saabsan oo la diyaarinayo, sidee ayaan idinku soo gudbiyaa? sababtoo ah waxaad ogtihiin in qaabka aynu hadda ku wada xidhiidhno ay qaadanayso muddo isbuuc ah oo aanu xogtu si fiican idinku soo gaadhaynin. waa gar ayaa la yidhi oo waa loo garaabay. waxaana la isku afgartay in la siiyo qalab diristiisu ay tahay degdeg, lacagtiisuna ay tahay qaali. waxaa lagu iibinayaa $100,000 oo jooga bilowgii 70aadkii. qalabkii ayaa loo keenay, waxaana loogu tababaray sida uu adeegsanayo. haddana waxaa la dareemay inaysan suurtagal ahayn inuu qalabkan qaato oo kala dego Qaahira. sidaas darteed ayaa waxaa la yidhi waxaa lagu barayaa si kale oo aad ku qaadan doonto. waxaad tegaysaa oo ku laabanaysaa Qaahira, kadib waxaad qaadaysaa dariiqa Suways ee isku xidha magaalooyinka Qaahira iyo kanaalka Suways.
markaad socoto 108 kilomitir waxaa kaa hor imanaya taangi biyood oo burbursan waxaa kasii dambeeya gidaar sibir ah oo isaguna dunsan xaggiisa dambe intaasoo talaabo kolka aad qaado ayaad qodaysaa kadibna halkaasi ayaad kala soo baxaysaa mishiinka iyo qalabkiisii waxaa loo sii raaciyay hadiiba aad ku guulaysato waqtiga rasmiga ah ee dagaalka la diyaarinaya inaad soo sheegto in loo laban laabi doono mushaharkiisa lagana dhigi doono halyey u halgamay wadanka Israa'iil aroortii dambe ayaa inshiraax oo wadata mid kamid ah wiilasheedii iyo mandaraq weyn waxa ay aaday wadadii waxaana ay qaaday qiyaasta dhulkii iyo tilmaantii halkii ayayna timi iyada oo qoday kadibna soo saartay mishiinkii iyada oo faraxsan ayay la timi guriga xilligaasi ayaa loo dhaqaaqay rakibidii iyo tijaabintiisii nasiib darrase intii ay qodaysay ayay ku dhufatay mandaraqii waxaana soo gaadhay dhaawac aad u weyn kaasi oo aan suurto gelinaynin in laga diro xogo hase ahaatee uu daarmayo oo keliya Ibraahim aad ayuu uga murugooday arrintaasi waxayna isku afkarteen isagii inshiraax inay inshiraax baxdo oo tagto Rooma wana sii gudubta Tel Aviv iyo caasimadda Israa'iil kadibna ay keento batoonada ka maqan iyo wixii ka jabay qalabkani subaxaasi ayay u duushay Rooma iyadoo safarkanina uu macno weyn oo kale iyada si gaar ah ugu samaynayo waxay uga sii gudubtay Tel Aviv iyada oo soo qaaday dhammaan wixii ka xumaaday mishiinka nasiib darrase waxaa dhacday in sirdoonka masaaridu uu haystay qalab kale oo ruushku siiyay kaasi oo loogu talagalay in lagu raacdeeyo oo lagu daba joogo qalabka noocan ah ee Israa'iil haysato hadiiba uu soo galo gudaha dalka Masar shawjudhii la shiday baa sirdoonka masaaridu waxa uu arkay hirarkii oo hawada ku jira waxaana la ogaaday xaafadda iyo halka laga shiday welise iyadoo aan la helin gurigii laga daaray ayuu Ibraahim demiyay kadibna maba aanu shidin markaasi marka dambaysa inshiraax markii ay gaadhay Tel Aviv sirdoonka Mossad waxa ay la dhaceen geesinimadeeda iyo daacadnimadeeda waxaanay mar kale ugu soo bishaareeyeen in la kordhiyay mushaharkeeda iyadoo markaasi la gaarsiinayo $150 xilligaas waxaa la sheegaa Masar qofka shahaadada jaamacadda haysta inuu ku shaqayn jiray lacag gaadhaysa 17 gini oo kaliya Ibraahim halkan ayuu keligii jiifaa gogol keligii ayuu marba dhan u galgalanaya waxa uu sugi laayahay inta ay inshiraax soo gaadhaso ay keenayso qalab ka maqnaa maanta mar uu qadeeyay ayuu damcay inuu seexdo cabaar kolkii uu isrogrogayna waxay ka qabatay bal inuu tijaabiyo qalabkan kuna eego mar kale bal inuu wax dirayo mase oga in la sugayo inta uu daarayo qura kolkii uu daaray ayaa la helay ilaa iyo qolka uu jiifo waxaana ay xilligaasi masaaridu calaamadiyeen qofka degan iyo guriga labadaba intii ay inshiraax safarka jirtay Ibraahim waxa uu sii watay shaqadiisii caadil oo ka sheekaynaya dhacdooyinkii xilligaasi ayaa waxa uu yidhi maalin ayaa aabe ka soo laabtay shaqada isagoo gariiraya oo dhididsan ayuu ku soo fadhiistay fadhiga waxa uu yidhi way iga shakisan yihiin ayaan u malaynayaa maanta mid baa su'aalahan ka shakiyey weydiiyey caadil waxa uu sheegayaa inuu aabihii ka shakisanaa in la dareemayo oo lagu daba jiro dhacdadaasi oo taagan ayaa maalinkii dambe waxaa dagaalamay xaafadda habaryartay iyo xaafad kale oo deriskayga ah aabe ayaa soo baxay oo isku dayay inuu dhexdhexaadiyo waxaase uu dhulku nagu yaraaday kadib markii gabadh habaryartay dhashay aabe ku qaylisay iyadoo tidhi markaasi waxaa tahay khaa'in waxaadna u shaqaysaa Israa'iil waanu ku ognahay dadkoo dhan baana ku og hadallo noocaas oo kale ah ayay ku tidhi caadil waxa uu leeyahay habeenkaas aabe ma aanu seexan waxaanu habeenkii oo dhan ka fikirayay khatarta aanu ku jirno aniguse ma garanayo sababta uu aabe ugu fikiri waayey inaanu baxsano oo aanu isku dayno inaanu si caadi ah amaba dhuumasho aanu kaga baxno wadanka kaadiska intaas leeg iyo sugista lama garanayo sirdoonka masaaridu waxa uga socday waxay soo badan tahay inay soo uga warheleen warka maqnaanshaha inshiraax kadibna ay sugayeen inta ay soo laabanayso ayaamo aan badnayn kadib ayaa askartu ku soo garaacday guriga isaga oo jeebaysan oo lagu hajiidaya ayaana laga saaray guriga mishiinkii iyo xogtii uu dirayay oo isugu diyaarsan ayaa iyagana gacanta lagu dhigay caruurtii ayaa iyagana la duldhigay askar iyo xiraaso weyn si aanay u gudbinin wax xog ah markan sirdoonka masaarida hadafkooda waa in inshiraax ay helaan iyadoo warmaqabta ah ay ka soo degto garoonka Qaahira waxaa la doonayaa inay iska timaado kadibna sidaasi gacanta loogu dhigo isgaadhsiinta oo iska koobnay darteed iyo warka oo si maalinle ah aan lagu heli karaynin ayay ku sii ballameen iyada iyo Ibraahim saacadda iyo maalinka ay soo gaadhaso madaarka kolkii ay soo gaadhay ayay weyday Ibraahim uu sugaya iyadoo ciil la googo'asa ayay ka soo baxday mar boorsooyinka iyo hadiyadahan waaweyn ay sidato ayaa culays ku ah waxaana ay doonaysaa qof caawiya marna waxa ay sidaahanti kale oo aan lagu aamini karin gacan kale iyo gaadhi kale toona sidaas darteed waxay u aragtaa inuu Ibraahim samaynayo mas'uuliyad darro uu faamiliga oo dhan khatar ku gelinayo
kolkii ay weyday waxay dantu ku khasabtay inay taxi iska qaadato waxaanay soo gaadhay gurigii iyadoo aad u xanaaqsan. waxa ugu horreeya ay rabto inay qabataana uu yahay canaan ay kala dudhacdo Ibraahim, waase nin aan waayahaasi ahaynin isagu. isla daqiiqadii ay guriga soo gashay ayaa iyadana hawada loola booday. muddo kooban markii ay xidhnaayeen waxaa lagu xukumay labadoodiiba dil toogasho. muddo aan badnayn kadib ayaa habeen madow Ibraahim laga saaray jeelka, waxaana loo sheegay halka loo wado waa inuu u socdo halkii uu ka lushay xadhiggii dildilaadu. askartii waday ayaa weydiisay waxa uu jecel yahay ee uu codsanayo, isna waxa uu codsaday mid sigaar ah. kaas ayaa halkaasi uu ku demiyey, isagana nafta lagaga demiyey. inshiraax ayaa ka sheekaynaysa kolkii iyadana lagu xukumay dilka. waxa ugu weyn ay ka welwelasay waxay tidhi waxay ahayd carruurtaydii oo maadaama aabbahood iyo hooyadoodba dil lagu wada xukumay aanan garanaynin halka ay ku dambayn doonaan. ma aana ahayn mid tukata hadda ka hor, laakiin maalinkaasi waxaa ii baryey waa cusub oo cibaado. baryadaydii tirada badnayd ee aan ilaahay baryayey ayaa waxaan ku dareemay inaanu aniga iyo ilaahay si toosa u wada sheekaysanayno. sansaanada yare aan ku jiro ayaa waasac ii noqotay, waxaana u haystayba in ilaahay qudhiisii uu ila joogo. waxaan sugayay maalinka la ii yeedhayo ee la ii wadayo halkii daldalaada. carruurtii ayaa la ii keenay, waxaana macasalaameeyey macasalaamayntii ugu dambaysay ee aannu isku arki lahayn. ayaamo markii aan sii xidhnaa ayaan isweydiinayaa maxay tahay sababta sidan oo dhan ay kaaga soo daahaysa geeridu. mar uun maa lagu dhaafiyo oo aad ka socotid adduunyadan. maalinkii dambe ayaa ii soo gashay hablihii shaqaalaha jeelka mid ka mid ihi, waxaanay si lama filaan ah iigu tidhi mabruuk, waa lagu cafiyey. waan qaadan waayey oohin ayaana bilaabay. waxaan u duceeyey madaxweynaha dalka Masar, waayo waxa uu tusay wanaagga dalkayga iyo dadkayga. inshiraax xilligaa waxaa lagu sii daayey maxaabiis ay isdhaafsanayeen labada dowladood, kaasi oo Israa'iil ay uga socotay inay jawaasiisteeda niyadda ugu dhisto una sheegto inay ka badbaadin karto xaalad kasta oo soo wajahda. inshiraax oo iimaan badani u soo siyaaday ayaa ka soo baxday jeelka, waxaana isla markiiba loo qaaday Israa'iil. halkaasi ayayna degtay, waxaana ay qaateen iyada iyo carruurteediiba dhammaantood jinsiyadda Israa'iil iyo diinta Yuhuudda. magacyadoodii horena waxa ay ku bedeleen magacyo Yuhuudeed oo halkaasi kula baxeen. magacii Ibraahim Shaahiin waxay u bedeleen David, halka inshiraaxna ay u bedeleen Diina. caadil waxaa loo bixiyey Raafi, Nabiilna Yuusi, halka Muxamedna ay u bixiyeen Xaayim. magacyadani oo ah dhammaantood magacyo Yuhuud ah ayay halkaasi kula baxeen. muddo kolkii ay joogtay ee ay soo dhammaatay soo dhoweyntii iyo marxabaysiintii tirada badnayd, maadaama ay dhammaatay shaqadii jaajuusnimo ee ay u haysay dowladdan, lana odhan karo waxaa laga dhammaystay dantii laga lahaa. waxaa laga goostay mushaharkii iyo dhammaanba wax kastoo la siin jiray, waxaana laga saaray gurigii ay degganayd. waxaanay ku dambaysay inay ku shaqaysato shaqada nadiifinta musqulaha Yuhuudda, taasoo noqonaysa dhammaadka khiyaamoole kasta oo khiyaama ciiddiisa iyo dadkiisa. daawadayaal, haddaba intaasi ayay ku eg tahay qisadii aynu ka soo sheekaynay ee Ibraahim iyo inshiraax. waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen qisadan, sidoo kalena aynu ku wada cibro qaadanay dhaqankii foosha xumaa ee dhallinyaradaasi ay ku kaceen iyo sida ay u khiyaamayeen waddankooda iyo dadkooda, islamarkaasina ay ugu adeegayeen dad kale oo cadow ku ah dadkooda iyo waddankooda. waxaan filayaa in ay risaaladu tahay mid waadixa, islamarkaasina ina wada gaadhay. waxaan sidoo kalena rajaynayaa inaad fariimihiina noogu soo qori doontaan halkan haddii aynu sii wadi doono qisooyinkan iyo kuwa lamid ah, iyo haddii aynu halkaasi ku joojin doono labadaba. qisada waxaa idiin soo jeedinayay anigoo Cabdalle Axmed Qaalib, waxaadna kala socoteen miidiyaha ama channelka Qaalib Production. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadiino.